وعشلو جينا إنا يعيشد ما نادي سلو جين درجين قفك ناكت ضمير كله وديجو كتيرو أنا بيمي وحجر كي كتيرو ناكت ديجو كتيرو سومالي إلهي نقول ريه أو جلانس إنا العاي أو لو ناكت ناك حواي ناكت ناك شخصية حواي ناكت ناك سواي أو ضدك يوصل جدي ماشو ضدك علي قال الله والله ma ahan markii koowaad oo ay sidaan oo kale isku qabsadaan haba ku kala duwanaadaan arinta isku maandhaafeen baraha bulshada waxa laga hadalhayaa sheekadooda balse maxaa karuna waxyaabaha dhexmaraya Baba J iyo Wiilo dadka ay u soo jeedinaysa dhehaysid wiilo saan waay shakhsiyadeedu way xun tahay madaxweynaha u gaftay aniga madaxda macaayin caanimaha deetahayni caanimaha taabi soo caan saartabo waligeeda la soo qaban jiray alis dadka la isku baran jiray oo caan iska dhigi jiray laakiin mid la isku sheeganayo anima waxay dhahday qof shakhsiyadeeda oo xun tahay horta taas Ilaahay ka caafiyo been waa mid qana ana hada qof xun ahay fiidiyoyaal waxay yeelaan ay ugu amaanaysid ay dhehaysid wiilooy taa qofka wax walba ma taqaanaya oo dadka iiga dhow wax walba ay sameeyay ninkii naagta dhehaysa ay ma fahamtani oo intaas oo dhanna ay u xeenaysaa ahay qof xun hadahay markaas ah marka ani waxa ahay naagta ku waxan markii loo eray xun lagu dhaho naagta kadib qanjirta ahay marka qalad ku socodtidne naagta ku dhihi jirtay abuu sameeynina ahay oo ka fikiri jirtay ma fahamtay laakiin maanta meesha ku geystay iyo meesha ay geysatay waa laba mid indhaha caalamka oo dhan markay ku soo jeesteen subscribe kala gara laabanayay way soo wacday waxay dhahday dhib ay haysto waxaan rabaa dhibkaas dadka indhahoodana diga jeediso laba qof oo saaxiib aan nahay hadalkii si fiican u dhageysta qofku way araga ah hadalka markii la bilaabo ayuu fahmi karaa meesha ku dhamaanayo markaas waa wacay iyo waran seeta waa fiicanahay maxaa dhib ku haysto saasay ugu dhacday maxaan sameeynaa waxaan dhahay inaan saas sameeyeen aniga waa maqlay laakiin dib baan aan dhahay laba maalin le waayo kadib arintu iska hagaagaysaa waxay dhahday meesha qorshe iga soo baxay adiga hal mar hadda soo qasto isoo canaanato waxa macquuladka indhoodana iga jeestaan iyo adiga dhankaaga u soo jeestaan waayahay isla markii aniga iyo Mursal iyo Saddam adii asxaab badan wada fadhinay geema iska ciyaareynay arintan u sheegay okay way leeyahay hadii walaasha wax xooga aad ka badbaadinaysid dhibaato ma lahayn u sameey wax rabto bas fiidiyoga aan duubay markii fiidiyo la duubayo oo qof la difaacayna oo waska taqaana adii hadal afkaaga ka soo baxay binaadana tahay anigana shakhsiyadeeda u gafamay ahayn meel laga qaato ma laha inaan dhahano waan ku qaldanahay waan ka raaligelinayaa kun iyo koow jeer anigoo iyada danteeda fiirinayo si indhahay ugu jeestaan ayaan arintii sameeyay arintii falcelin qaldana ka imaaday dadka aragtidooda kala duwan tahay qofna hadalka waxa la yiraahdaa si u dhahay qofna si u qaaday aniga marka hadalka aan sas dhahayo oo kululeynayay waxay iga ahayd hal mar gabadha ka soo wada jeesta wixii iyada ka maqan hawada helaan dadkii dhanna khadaha muxuu gabarsan u dhahaa muxuu kan u dhahaa si waxay iyada ugu laabtaan intaas waxaan sameynayay inaan saaxiib difaaco wixii iyada ku soo socdaan dusha aan u dhigto Wiilo iyada oo muujinaysa sida aan loo aamini karin qof saaxiib laga dhigto ayay riwaayad yar oo kooban ku soo bandhigtay iyada oo markaa ula jeeda Baba J gabar qalbi wanaagsan taa wala saaxiibadeeda adduunka wallahi qosolkaada wax loo dhigma wala qosolkaada adduunku jecelahay ya thank you saaxiibada kaliya alla yaa tahay oo ku jecelahay tanooda wax ka taqaano qosolkeeda markii hore dhibsi jiray aan dhagaa iga jibi jiray ayada dhan danaysto waay meel ay ku fiican tahay oo Ilaah abuurtay malahan الله منك ما صار يعينوه يا صار ما يعينوه الله دون كان اسمه دهينو كسو عينا كور صاحب كاغا صاحب مجري سنة كان سنة على سبسكرايب كان يقول لعبنو يا على دار عيش يوتيوب حاجة فنا ودو يا حسن يا تلو سوق يا شيكا هايا بس كده ما يوقعن هاد وبحاي ويلا وتجا وحليها برانكي هاد برانكي إنا يسوع عايز أشرفتي وكسودي شو برانكي والله مية يسوع عيني وحسيني وسويسيني أوهت هذا بشوف بيا ورابحي بتطلع كده برانكي وأنا ويلو بس برانكي يلا أنا دار عايز ما يدل رما أنا بكرتي أنا بعدي dadka qaar ayaa ku xanta in arrimahan oo kale ay yihiin kuwo ay isla og yihiin sida horeba loogu eedeeyay YouTuber caan ah